Bismillahirrahmanirrahim. Daawada kusoo dhawow kilibkeeni labaad ee idin soo gudbinayso Taha Inspires. Taha Inspires waa meel dadka lagu dhiirigeliyo laguna wacyigeliyo. Kilibkeeni labaad maanta waxaan idinku soo gudbinaynaa 3 talo oo haddii aan fulino nolosheena ku tabaqno wax badan inaga bedeli doono, wax badan inoo sahli doono inay inoo suurtoobaan. Taladeena koowaad waa xasuusta aakhiro. Xasuusta aakhiro marka aan xasuusano maalinta aakhiro ayaa waxaan xasuusinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in abuurtay wadadiisana ku toosanaanayna. Saxaabi baa jiray oo Nabiga sallallahu wasallam alayhi u imaaday oo weydiiyay Nabiga waxaad ii sheegtaa naseexo ama dardaaran oo islaamka dhexdiisa ah oo aanan qeyrkaada weydiinayna ma aan qof kale weydiinaynin ayuu ku yiri Nabiga sallallahu wasallam alayhi. Jawaabta uu Nabigu siiyay sallallahu wasallam alayhi waxay ahayd qul aamantu billah thumma istaqim. Ilaahay ayaan waxiday oo aaminay kadibna ku toosno wadadaas. Aayad waxaa jirto suuratu Fussilat ku jirto oo qolkan sidoo kale si tafsiil ah u sheegayso innal ladina qaaluu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu alla takhaafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Marka aan xasuusno maalinta aakhir ayaan ku toosanaanayna wadadaas. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo ballan qaaday in inaga ilaalin doono xusni iyo welwel iyo cabsi inaga ilaalin doono ayuu inoo ballan qaaday. Dardaarankeeni labaad waxa waa shaqo adeeg. Aadanaha intiisa badan wuu ka siman yahay waqtiga uu haysto iyo awoodaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay inta uu dhashay la soo siiyay. Laakiin kaliya waxay ku kala tagaan qofba awoodaas sidoo uu isticmaalo iyo waqtigaas sidoo uu isticmaalo. Taasna waxay ku xiran tahay qofka juhdiga uu geliyo howlaha iyo waxyaabaha uu qabanayo. Ka shakhsi ahaan shakhsi kale wuxuu ugu hormari karaa kaliya marka uu dadaalo. Bulshadana sidoo kale waxay ku kala hormaraan oo kaliya hadba siday u kala dadaal badan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay qof kasto anaga inaga mid ah inuu naftiisa juhdi geliyo, ummadiisa juhdi geliyo, horumar inta uu talaabsan karan uu talaabsado. Haday tahay shaqo, haday tahay waxbarasho, haday tahay waxyaabo kale. Juhdigaas ayaa miri badan iyo natiijo badan ka soo dhasha. Dardaarankeena ugu dambeeya aan idin soo gudbinayno daawade waxay tahay isku kalsoonaan. Kalsoonida ayaa waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha qofka bani aadanka uu ku guuleysan karayo. Qof kasta oo guuleystayna wuxuu lahaa sifada kalsoonida. Sifadan kalsoonida ayaa ah wax ku suurtageliya inaan ku dhiirano waxyaabo oo dadka intiisa badan ay ku dhiiran waayeen oo maxaan ku yiraahdaa howlo ah. Kalsoonidaas qofka isku qabo ayaa keenaysa marka inuu hadafkiisana ka natiij gaaro waxyaabo badan oo isaga aanan filaynin ama aanan u malayn jirin uu xaqiijiyo. Nin gabiya ah oo Almaani ah ama Germany ah ayaa wuxuu yiri oo la yiraahdo Charles Bukowski baa waxaa laga hayaa dhibaatooyinka dunida ka jiro. Wuxuu dhahay waa dadka aqliga badan oo aan isku kalsoonayn iyo dadka xumaanta iyo wada oo kalsooni ka buuxdo ayaa maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyinka dunida ka mid ah. Qof kasta marka waxaa loo baahan yahay inuu kalsooni isku qabo, nafsidiisa uu kalsooni ku qabo. Markaas ayaa wax uu gacanta ku hayo ka miri dhalin karaya. Dhageyste intaas waxay ahaayeen 3 naseexo oo aan maanta idinku talagalnay Taha Inspires in idin soo gudbisay. Dhageyste si mashruucayna u ballaarto faa'iidada barnaamijkan ay dad badan u gaarto waxaan kugu wargelinaynaa inaad xukumato barnaamijyada social media aan isticmaalno ee Facebook iyo Instagram-ka iyo sidoo kale YouTube-keena aad xukumato. Insha Allah waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijyo kale oo idin anfici doono. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.